السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو وناكسن داود يالكسو دواد برنامج كينية arrimaha bulshada oo nimaanta ku eegayno dhinaca caafimaadka barnaamijku waxa ay igala qayb galaya Cusmaan Geedi oo dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud Cusmaan ku soo dhaw barnaamijka walaal aad iyo aad baan umahadsan tahay waana dhawahay Cusmaan aniga daawadaasha waxaan rabi lahayn inaad noo faa'iideyso taariikh nololeedka Cusmaan Geedi waad mahadsan tahay mar labaad walaal Cusmaan Geedi magaciisa dhameystiran waa Cusmaan Cabduqaadir Caalim Geedina waa Naynaas waa bahleeyahay markaan dhanka nolosheedii waxbarashadeedii aan ka hadlo waxaan dugsi hoose ku soo akhristay Soomaaliya laakiin dugsi dhexe iyo dugsi sare Kenya ka baxay ilaa jaamacad ugu dambeyntii waxaan noqday nin riyadiisii qayb ka gaaray oo ahaa mustaqbalka waxaan jeclaa inaan dhakhtar noqdo alxamdulillah ugu dambeynna waan noqday haddana waxaan ahay dhakhtar ka howlgala Islii inta inaan hadda barnaamijkan oo aad diiradda u saarayna in soo gudagelin dhakhaatiirta guud maadaama aad tahay dhakhtar haddana joogo waddan aan waddankiisa inuu qurba ah dhakhaatiirta maxaan dhihi karnaa way kala kulmaan waddankan ay joogaan hortaani waxay ku xiran tahay waxaa la dhihi karaa haddaan iska Kenyaan baan ahay maadaama waddankan anoo yar aan imin aad baan ugu duwanahay dhakhaatiirta kale ee shaqo ahaan u yimi waddankan sababtoo ah xirfadeeda caafimaadba waxaan ka bilaabay isla waddankan aan hadda joogo ee Kenya marka maadaama dhalashadayda ay Soomaali tahay laakiin se shakhsi ahaan waxaan ahay shakhsi Kenyan oo waddanka kuma ihi marti ku nin usoo shaqeynayay oo kaliya aad iyo aad waxaan ahay nin waxaan ku raadaytaa ka shaqeeya wax ku soo bartay noloshiisana intii aan ka garaadsaday ama aan garanaysaa aan ka noqday qof macquul ah halkan aan ku qaatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka koowaad waxaan ku weydiin lahaa Dr. Cusmaan cudurka la yiraahdo baabasiir waxa uu yahay baabasiir ama qormaali sida ay dadku hadba ay u yaqaanaan waa xanuun badanaa aan lahayn da oo la dhihi karo qofka age-kaas markuu gaaro ku dhacaa ama maxaan ku raahdaa aan lahayn limit oo qofka inta hadduu gaaro kuma dhici karo aan la dhihi karin badanana baabasiirku waxaad moodaa bulshadeena Soomaaliyeed inay aysan si fiican u fahansanayn oo ay u arkaan wixii ama nabar ama xanuun ay danka saxarada ka dareemaan ay ugu magac daraan ay u dhahaan waa xanuunkaas baabasiir ama qormaaley laakiin sidaas ma caqabada kale jira oo isla bulshadeena aysan xanuunkan aysan fahansanayn waxaa ka mid ah inay qarsadaan oo ay ceeb u arkaan inay intay dhakhtar tagaan ay dhahaan xanuunkaas aan qabnaa ama meeshaas iyada abaana laga hayaa waa cudur inta badan lala xishoodo la qarsado noqday aad iyo aad maxaa is dhihi karnaa cudurkaas inta badan uu ka bilowdaa ama uu ka dhashaa waxay xanuunkani wuxuu ka dhashaa horta waxyaalo fara badan laakiin waxaan fiirinaynaa calamity-ga meesha aan ku noolnahay iyo bulsho ahaan dhaqankeena xanuunka wuxuu la xiriiraa dhaqanka iyo hadba cimilada waxaan dhihi karnaa dadkeenu waxay ka qaadaan waxaa sababa horta caloosha fariisata qofka in calooshiisu ay socon weydo baa keenta waxyaalo badan baa keena oo maxaan ku raahdaa fara badan laakiin badana bulshadeena waxa ay ka qaadaan taas ay kamid tahay cuntada aan caloosha fariisatay isticmaalaan caloosha aysan socodsiinin iyo waxyaalo la halmaala laakiin way badan yihiin waxyaalaha laga qaado halkana kagama hadlayno waayo wixii markaas anaga naquseeya oo bulshadeena ay ka qaadaan baan ka sheegay ka hadlayna maadaama uu cudurka sida aad sheegtay uu la halmaado caloosh oo fadhiisata طبعا caloosha socitaankeeda
la socitaankeeda ama seenoo sida ay caloosha ay dadkaas dadka waxay u kala isticmaalaan qaabo badan dad waxay calooshooda ku socodsiiyaan caana ay cabaan dad waxay ku socodsiiyaan xulbada ay cabaan waxyaalahaas oo kale isagu ma la halmaalaa oo ma la dhihi karaa uu isagana waxbuu ka yahay qayb buu ka yahay kuwaas caloosha lagu socodsiinayo iyagana sida hadda xulbada oo kaleeto iyo haa horta ereygan baabasiir ama afka qalaad lagu yiraahdo hamahadiska lagu yaqaan loo yiraahdo waa wax noolaa oo qofka ku dhex jira ma aha xanuun qofka ku dhaca laakiin wuu kacaa oo waxaa waaye qofka ku kaca dadku way wada qabaan laakiin dadna waa dad uu la nool yahay dadna waa dad uu ku kacsan yahay oo uu markaas cilad u keeno oo xanuun ku noqdo dhaqaatiir ahaan waxaan u kala qaadnaa heerarkiisa labo marka dambena afar waxaa loo external iyo internal oo kala gudaha mid ku jira iyo mid banaanka ah marka isagii baa heerar kala leh afar heer buu soo maraa markii sidaan hore kugu sheegay waa noole qofka ku dhex jira oo circle-ka meesha saxarada buu ku yaalaa oo wax sida carabka ahaan u samaysan ilaahayna ugu talagalay in ay markay wax yimaadaan oo meeshaas xiro markii aysan waxna joogin uu control meeshaas control ah marka xanuunka waxa qofka uu keena markii uu qaato ay calooshu fadhido aysan saxara ka imaanin cadaadis uu la kulmayo cadaadis markuu la kulmo wuxuu isku dayaa inuu xakameeyo xakameyntaas oo marka ku kalifto marka dambe inuu isagu qarxo ama uu garanaysaa uu kala xirmo oo uu dhiig kala xiro kadibna uu sidaas ku weynaado marka afarta noocan u kala qaadayno labo internalka lagu gartaa oo waa marka gudaha oo banaanka ma yimaado qof oo inta gudaha ku jiro oo wuxuu dareemaa qofku sida inuu cuncun oo kala u dareemo waana marka labada heer u horeysa wuu yar yahay banaankana ma aha laakiin isagoo gudaha ku jira buu sii kala weynaadaa oo hadda in gaara talaabo kasta oo sii qaadana calaamad gooni la yimaada marka horeeto inuu qofkii oo cuncun ku keeno marka dambeeto inuu ku keeno qofkii maxaan ku raadaytaa tabar yari ku keeno very weak qofkii tabarti u yareeyo aad u yareeyo haddana heerka saddexaad buu soo gudbaa oo inuu banaanka u soo baxo oo marka badan dadku ay arkaan wuxuu ku sii darsanayaa qofkii marka uu banaanka yimaado madax xanuun inuu qofkii madaxa iska xanuuno caajis fara badan appetite ko qofkii ka xirma heerkiisa ugu dambeeya waa markuu banaanka uu wada yimaado in ilaa dhowr senti ah uu banaanka u soo wada baxo markaas oo marka hadii aan qofku sida ugu dhaqsiyaha badan uusan dhakhtar u tagin waxyaalo badan baa ku dhici kara in xididkaasi qarxa dhici kara oo meeshaas oo dhiig bax aw ku dhaco Usman waxaad hadda ka dhawaajisay cudurkaas uu yahay cudur qof walba ma ku jira laakiin dadka marka ay dareemaan uu yahay mar uu ku kacay cudurkaas iyo mid kale yiraahdo gooryaanka maxaa la halmaanaa waa su'aal muhiim ah waxaan hore kugu sheegay xanuun kasta oo meeshaas ku dhaca ama qofku uu ka wax ka dareemo badanaa waxaa loo saarayaa maxaan ku rahdaa baabasiir laakiin sidaas ma aha waxaa jira xanuuno badan oo eg oo isla carabka agtiisa seekolka wareega agtiisa ku dhaca baa jira xanuun fistral lahaa jira oo isla meeshaas meel u dhow ka soo baxa calaamadaha badanaa way iska shabahaan laakiin xididkaas baa waxaa gala malax baa gasha isla waxaa keena isku sibuu ku yimaada isna cadaadiska keena laakiin malaxdaas markay gasho waxay samaysataa duleel bay samaysataa ee qofka ay ku faafto marka qofku wuu iskaga noolaadaa wuu iskala noolaadaa way qaraxda dhacaan baa ka yimaada xanuun wuu fiicnaadaa cabaar markuu joogo bay timaadaa aad bayna iskugu dhow yihiin xanuuno kale oo isku dhow yihiin oo isla sidaasaa jira marka qofka aan professionalka ku ahayn ama aan aqoonta fiican u lahayn aan u lahayn wuu isku khaldaa sababtoo aad bay iskugu dhow yihiin laakiin waxaa jira qalab loogu talagalay baabulsiirka in lagu eego oo lagu baaro oo
sida waxaa jira qalab la yidhaahdo aniscope ayaa jira oo ilaa 10 centimeter meelahaas ah oo loogu talagalay in lagu ogaado marka way waxyaalo badan oo baa jira dadka ay ku qaldaan laakiin uu ka duwan yahay haddaan usoo laabto su-aashaadi gooryaanka way kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin waayo gooryaanku waa wax marka hore caloosha ku dhasha markuu caloosha ku dhashana kadib wuxuu soo raacaa saxarada marka noolihii caloosha ku dhashay markii uu soo gudbo laakiinse uusan banaanka toos u wada iman wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaq buu ku sameeyaa isla meesha aan kuu sheegay saxarada soo marto dhaqdhaqaaq buu ku sameeyaa laakiin wax saa usii weyn maaha waxaa laga yaabaa markaas marka ku xigto qofku uu isku tago inuu gooryaanka isaga ka soo baxo ama meesha uu ku dhinto laakiin xanuunkiisu wuxuu joogaa caloosha marka midna waa gudaha shishe midna waa isla waa banaanka si fiican dhaqaatiirta yaa midka aan professionalka oo inaan aqoonta buuxda aan u lahayn yaa inta badan isku qaldi kara laakiin qofka uu hayo ma u garan karaa waxa ay inuu yahay baabasiir qofka isla markaas runtii aad bay u adag tahay sidoo ku gartaa qofkaasi inuu xanuunka haysaas yahay saan kuu sheegayba waxaa lagu khaldaa xanuuno badan waxaa laga yaabaa qofkii isagoonan uusan qabin xanuunkaas isaga ah ee baabasiirka in haddii uu calaamado noocaasa ama meeshaas iyada ahba uu wax ku arko uu is yiraahdo waxaad qabtaa xanuunkaas laakiin waxaa wanaagsan qofku sidiisaba hadiiba oo xaalad caafimaad ay ku soo kororto inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u tago dhakhtarka u dhow si uu markaas u ogaado ama daawo waxaas uga helo marka qofkii xanuunkaas baba haya isaga yuusan garanin hadduu rabe qofkaas maxaan dhihi karaa u daawo ah dhowr siyaabad baa loola tacaalaa sida aan horey kugu soo sheegayba dhowr heer buu soo maraa marka heer kasta uu soo maraba wuxuu leeyahay tallaabo lagu qaado loo qaado oo lagu daweeyo marka xilliyada horeeto oo gudaha uu ku jiro wuxuu leeyahay daawooyin la qaato markii uu banaanka yimaado laftirkeeda uusan laakiin saaid u imaanin oo ilaa heerka saddexaad oo kaleeto uusan imaanin uu yimi laakiin saaid uma soo wada bixin oo ilaa heerka saddexaad oo kaleeto iyadana daawo jirta loogu talagalay laakiin ugu dambeynta haddii uu heerkiisa afaraad gaaro waa laga qalliin baa lagu sameeyaa ilaa heerka ugu dambeysa afaraad uu gaaro laakiin saddexda heer oo kaleetoba daawooyin baa lagula tacaalaa qofkaas waa markuu ku weynaado markuu heerka afraad imaado waa markuu ku weynaaday marka qofkaas sabab muxuu sababi karaa markaas inuu qofkaas marka usii gudbiyo xanuunkaas maadaama xanuunkii waqtigii la rabay in la iska daaweeyo uu soo tallaabay oo ilaa xil qaritaana uu imaaday maxaa kaloo u sababi kara inuu cudurkaas soo hoosgala waxaa jira waa runtahay horta xanuuno iskeenah baa jira iyo xanuuno korkaaga markii tamartu ka dhamaata oo daciif ka noqdo waxaa kuu sahlanaana in xanuun kasta ku dhaco marka wuxuu isagu ka mid yahay xanuunada qofka bini-aadanka jirkiisa daciifka ka dhiga oo markaas u sahlanaato in uu xanuun kasta uu ku dhici karo weliba xanuun kasta hargab oo kale haddii qofkaas uu ku dhaco waxaa laga yaabaa inuu sariir u fuulo u tabcaano because difaaca jirkiisa aada u yar saan kugu sheegay horey kugu soo sheegay wuxuu leeyahay wadna qaraa daal fara badan tabartii qofkii ka dhamaata waxyaalo badan abteedka qofkii cuntadii uusan qaadanin qofkii waxyaalo badan marka haddaad cuntana aadan qaadanin tabarna aadan lahayn waad u sahlan tahay in xanuun kasta kugu dhaco markaas xanuun kasta markaas uu soo hoosgalo ugu dambeyntii Dr. Cusmaan maxaa tala oo siin lahayd maadaama oo sida aad horey noogu soo sheegtay uu yahay cudur inta badan dadku ay qarsadaan loo maleeyo inuu ceeb yahay haddana cudurka hadduu sii dheeraado oo maaragtay ilaa heer qalitaan uu gaarayo qofka marka maxaa tala hadda oo siin lahayd daawadayaasha intaan talada siinin wax yar baan ku hormarin lahaa xanuunkan horta waxaan ceeb u naqaanaa anagu inaan dhakhtar u tagno markii xanuunada la xiriira hoos ay nagu dhacaan waxaadna moodaa inay dhaqanba u noqotay soomaalida bulshada kale aad baan uga duwanahay taas siba
waxaad moodaa haddana qofkii marka uu dhalinyar yahay wuxuu uu sii arkayaa ceeb wuxuu leeyahay intaas da'daas jira maxaan ku rahdaa xitaa inaad saas aad noqotay laakiin san hore idinku sheegay waa ma aha maxaan ku rahdaa da' kuma ku xirna marka tala ahaan maxaan siin lahaa qofku ma garan karo xanuunka inuu isaga yahay iyo in kale laakiin haddiiba aad aragtid in arrimo noocaasa waxa aan soo sheegnay kamida aad aragtid inaad dhakhtar la xiriirtid midda kaleeto waxaa aada u muhiima inuu mar walba qofku caafimaadkiisa la socdo calooshiisana socodsiiyo waxyaalaha qofka caloosha dadku isku mid maaha qof walba waxbaa calooshiisa jilaya marka badanaa in qofku uu ku dadaalo inay calooshiisu jilicsanaato ay socoto biyahana la badsado biyaha cabitooda aada loo badsado waayo waxay kaa saacidaysaa inuu dhiigaagu si fiican u shaqeeyo in caloosha laftirkooda oo kaleeto maalintii haddii qofka xataa uu 5 liter uu aabi karo it's okay cusmaanow waxaan cudurkan intaan hadda mar aan baaritaankiisa ku jiray markii qaybta caafimaadka ee dhakhaatiirta laga soo tago ma waxaa jira waxyaalo kale oo la iskaga daweeyo oo dhaqan Soomaaliyeed ah waxaa jira dhaqan Soomaalidu ay leedahay oo caafimaad ahaanba ma yeelan dhihin xanuunkan bas laakiin sidoo kale xanuun kasta waxaan leenahay dawo dhireed u gooniya laakiinse waxaan dadka daawana u sheegi lahaa inuusan kan xanuunka la mid ahayn aysan ku degdegin waayo xanuunkan waa aad buu halis u yahay runtii markii laga hadlayo raggana aad buu ugu daran yahay 2 jeer buu waliba khatar ragga u leeyahay oo markuu hayana khatar uu leeyahay marka qalliinka ama meeshaas la sameynayna khatar buu leeyahay marka dhakhtarka sameynaya qalliinkaasi waa inuu aad looguma degdego qalliinadaas oo kaleeto aad baa looga fiirsadaa marka isagoo ilaa heerkaas qalliinkiisu marayo haddaa dhaaday keen jawaan geynaya oo waan iska sanaynaya oo waan gubaya marka wax kasta kugu dhici kara marka aad bay u adag tahay marka kaleeto oo ku dhacayo isna halista kale ragga u leeyahayna daciifintaankaas aan ku soo qofku uu daciif noqday xamihiisu la dagaalamaya isbaamuskiisa kula dhacay oo week ka dhigaya qofkii ilaa oo finally gaaro inuu qofka ku sababa inuu qofkaasi uu madaleysmo waatay daawada intaas ayaynu ku soo afeernaa barnaamijkeena arrimaha bulshada oo aynu maanta ku eegayna dhinaca caafimaadka oo marti ugu Dr. Cusmaan Geedi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud barnaamijka waxaan la soo codsiinay anigu Goor Maxamed Cali tan inta dib u kulmo doono barnaamijka mid lamid ah waxaan ku dhaafay siyaasi fi amaanillah